kulankan oo ahaa mid lagu taageerayay guushii taariikhiga ah ee ay gaartay xildhibaanad Qaali Cali Shire oo ku guuleysatay kursiga Hoob 60 ee golaha shacabka baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa lagu qabtay magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug iyadoo kulankan ay ka qayb galeen xubno ka tirsan labada aqal ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya mas'uuliyiinta maamulka gobolka Mudug kan degmada Gaalkacyo iyo kumanaan qof oo matalaya bulshada qaybooda kala duwan gudoomiyaha degmada Gaalkacyo Cabdiraxmaan Sheekh Xasan Jimcaale ayaana ugu horeyn kulanka ka hadlay xildhibaan Qaali Cali Shire waxaan leeyahay xildhibaan hambalyo mas'uuliyadda culus ee qaaday Ilaahay subxaanahu wa ta'aala 4 sano kugu asturo anagu ku xifdiyo mas'uuliyaddana Ilaahay ku waafajiyo insha Allah ta'aala wana guulaysanaysaa Ilaahay waana gudanaysaa insha Allah qaar ka mid ah xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa iyaguna bogaadiyay tartankii ay ku soo baxday xildhibaanad Qaali Cali Shire qaali soo dhawow markaan galo baalkan warbaahinta hadda maaragtay caawa si walba loo qaadayay xildhibaanada ka soo baxay Galmudug markaan si sama badan ku soo kala baxaan mid xaaraan oo horta kuma jiro waxaan u hambaliyeenayaa xildhibaan Qaali Shire ee kursiga Hoob 60 ku guuleysatay hambaliyaan leh waxaan u mahad celinayaa madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor ee doorashada Galmudug hagayay waxaan u mahad celinayaa guddiga doorashada dawlad goboleedka Galmudug iyo kuwa heer federaal waxaan u mahad celinayaa beesha kursigan lahayd ee Qaali u dooratana aad iyo aad baan ugu mahad celinayaa Qaali waa guuleysatay waxaana guuleystay gobolka Mudug iyo reer Galmudug oo dhan waxaan leeyahay guul waxaan rabaa caawa hambaliyada halkan doorashada Galmudug waxa ka dhacday doorasho wanaagsan baa ka dhacday laakiin kursigan basbaas iyo cusbo laha sida dadku ka wada dhawaajiyeen ba taariikhda Galmudug baaldahaba ka gashay hal kursi oo 4 gabdhood ku tartameen wareegii saddexaad isla tageen wuxuu ahaa kursi macna ku fadhiya waxaan rajaynaynaa haddii alla idmo kuraas badan sida iyo si lamida in loogu tartamo qaali waxa laga rabaa qof kasta oo baagamuudo ah oo dadka maalin walba jaamacadaha ka soo qalin jabiyo ogtirinay inay shaqo wada siisaa qaali laga rabaa qaali waxa laga rabaa mid kasta oo dhibaataysan oo duruufo hayso inay garab istaagto beesa waliba jeebka u galisaa laga rabaa qaali waxa laga rabaa mid kasta oo safar banaanka raba ama ha tahriibo ama ha u socdo oo caafimaad inay fiisa u soo qaado safaaradaha fiisa oo keenta laga rabaa ugu dambeynna xildhibaan Qaali Cali Shire ayaa ka mahad celisay kulankan taageerada ah ee loo sameeyay waxa jira waxa diga filaysan oo ah wanaag waana sameyn doona waana ka shaqeyn doona wax badan hadaa idina waxaan leeyahay waxaan ka sheekeyn doona waxaan ka shaqeyn doona bari qaarkood baa iga dhimanaan kara wax badan iga dhimanaan kara dacwo ay qabsanaysaan waxa ay leedahay halkaas ay ka tagtay waxa idin leeyahay waan idin adeegi doona si la yaqaan idin kugu adeegi doona si idin farax galisa idin kugu adeegi doona waxaan idin leeyahay nabadda aan ka shaqeyno aan ka wada shaqeyno horumarka Cabdirasaaq Maxamed Axmed warbaahinta qaranka Soomaaliya Gaalkacyo.